soo dhawaada sii gudbiya oo isa sii gaarsiiya barnaamijka dhammaantiinba waxaan bartan idinku soo qori doonaa nambarkeena WhatsApp-ka ee dooda dhammaantiinba kaga soo qayb qaadanaysaan waxaynu ku eegi doonaa dooda baaq shacab ma sax mise qalad qof waliba aragtidiisa uu ka qabo fariintan baaq shacab oo xora isagoo waliba sharaxaya ayuu ku gudbinaya bartan si aynu bulshada u kala eegno bal hadda baaq shacab sida ay u aragto iyo qaabka cilmiyeed ee ay u fahansan tahay fariinta baaq shacab iyo waxay kaga soo horjeedo haddii ay jiraan dad ka soo horjeeda intaba sidoo kale labada dhinaca loo badan yahay ayaa qiimeynta iyaduna inooga qayb noqonaya dhammaantiinba sii gudbiya barnaamijka waxaana bartan idinku soo qori doonaa nambarkeena WhatsApp-ka oo aan doonayo inaad kaga soo qayb qaadataan qof kastaaba waxa weeye aragtidiisa nambarka WhatsApp-ku waa sii gudbiya waa kaa nambarkeena WhatsApp-ku fadlan qof kastauba ka soo qayb qaado adigoo aragtidaada ka dhiibanaya bal sidaad u fahantay baaq shacab waayahay waxaan bilaabayaa bal dadkan aragtidooda ina soo wacaya inaynu ogaan karno iyadoo bilaa turxaana waa aragtidaada oo bilaa turxaana isa sii gaadhsiiya fadlan barnaamijka isa sii wada gaadhsiiya haye soo dhowow ku soo dhawow barnaamijka sidaad u aragtaa baaq shacab ma sax mise qalad anigu marka shakhsiyan iska hadlo baaq shacab waxaan u arkaa sax waaya maxaad ku taageersan tahay markaa waxaan ku taageersanay waxa weeye Somaliland dadka warqabada siday wax u socdaan sistamka dawladnimo waxaasoo dhamay u socdaan adigu wad la socota cidna kaaga waramayso adigoo dadka aan la socon u qeexaya dadka aan la socon haddii aan u qeexay waxa weeye Somaliland marka lagu noqdo systemkii wax lagu soo wada dhistay dawladnimadii dheelitirankii isnaasnuujintii iyo magaranayay mashruucyadii dadka laga bixinayay islaami qaybsigii dawladda iyo xilalkii waad ogtahay inay ku soo qomeen maanta ninka xukuumaddiisa iyo tolkiis markaas in wax la wada yeesho oo la xisaabiyo oo lagu noqdo
garanaysaa heshiisyadii waddanka lagu galay oo in dadku sinaan iyo cadaalad ay helaan sidii madaxweynuhuna ku dhaartay dastuurkana ku qoran in systemkii wax laga soxo kow cadaaladda lama garanaysaa lagu baaqo in shacabku ay sinaadaan oo wiilka degan gebiga dhinaca bari iyo wiilka degan dhinaca galbeed inay isku si wax u arkaan oo mashruucyadii la qaybsado oo dalka wixii soo galay la qaybsado oo hantidii ummadda la qaybsado oo cashuurihii si siman loo bixiyo taasaan ku baaqana anugu cadaaladna leh taasaan aad baad u mahadsan tahay dadka kalena aragtidoodaynu eegaynaa iyo waxa ay ka aaminsan yihiin baaqshacab waan kugu tixgelinayaa fikraddaada aad iyo aad waad ogtahay ciise waay si wadaa mise intaas maya dadka kale aynu fikrad jaaliska siinaynaa aadna waad u mahadsanta waaya kolley afkaarta bini aadamku aad bay u kala duwan tahay bal hadda qof waliba adigu ta aad qabto nala wadaag adigoo noo sababeynaya sida uu wiilkan inoo sheegay isagu tiisii ayuu dadka la wadaagay adigana taada cidi kaama hortaag barnaamijkaygan meel kastoo aynu ka hadlayno waxaynu ku dadaalaynaa inaynu dhex u noqonno bulshada iyagoo aragtiyaha kala duwan qaba meel kastoo ay ku nool yihiin iyo wax kastoo ay isku hayaan si ay dadku u fahmaan waxa la isku hayo yaa qaldan yaase saxan si ay bulshadu u aragto ay u kala dooran karto labada doodood ee is hor yaalla teebaa fiican teebaa waxtar leh se teebaa dan gaara iyo hawl gaara wadata sii gudbiya barnaamijka oo inoo wada gaadhsiiya dadka waxaweeye reer somalilan meel kasta oo ay waxaweeyaan inaga daawanayaan dhammaantiiba baaqshacab waxaa taageeray mas-uuliyiinta ugu sarsarraysa ee xisbiyada qaranka faysal cali waraabe oo shalay ka hadlayay waa uu taageero ayuu muujiyey baaqshacab sidoo kale waxaa taageero u muujiyey xisbiga waddani sidoo kale waxaa taageeray dad fara badan oo somalilandara oo daafaha dunida ku nool iyadoo codayntii ay soo bandhigeen lagu sheegay in 70% dadkii codeeyey ay baaqshacab fariintiisa soo dhoweeyeen aqbaleen una codeeyeen halka inta ka soo horjeesatay markaa qiimayntaa lagu xusay inay ahayd waxaweye 30% oo runtii aynu arki karno markaa farqiga u dhexeeya labada doodood ee midna uu leeyahay waa sax midna uu leeyahay waxbaa qaldan waayahay meel kastoo aad joogtaan sii gudbiya barnaamijka kana soo qayb qaataa aragtidiinna oo fayow qof kastooba adiga oo ku miisaamaya waxyaabaha adigu aad aragtay shaksiyadaada aan eegaynin tan kale iyo tan kale iyo tu kale toon waxaynu ognahay somalilan oo 28 sannadood ama 29 jirsatay iminka 29kaa sannadood wixii ay bulshadu ku taamaysay inaan la gaadhin intoodii badnay haddii ay tahay dowladnimadii taamka ahayd haddii ay tahay horumarkii iyo wixii la raadinayey oo maanta aynu arkayno in wasaaradda caafimaadka haddaynu tusaale usoo qaadanay ee somalilan dhakhtarka hargeysa ee kii ugu weynaa somalilan la leeyahay waa bilaa oxygen dhakhtarka burco oxygen ma haysto weliba waxaa u dheer bilaa ambalas oo qofka gurigiisa ku xanuunsanaya wax lagu soo qaadaa ma jirto dhakhaatiirta kale ee dalkana waxaad ka qiimeyn karaysaa mar haddii caasimadii iyo caasimad ku-xigeenkiiba aanu midna haysanin oxygen labadubana ambalaas xumo ay la cakiran yihiin sidee weeye degmada ku taalla cidhifka bari ee somalilan sidoo kale sidee weeye degmada cidhifka galbeed ku taalla ee somalilan waa waxaad qiimeyn weyn ku qaadan karayso dhinkaasoo keliya maaha dhanka cadaaladda waxaynu arkaynaa maalin walba dulmi ka dhaca somalilan oo ay dadku ka cabanayaan dhinac walbo ay tahayba haddii ay tahay hanti iyo haddii ay tahay naf iyo haddii ay tahay xuquuq qof bili-aadani leeyahay sidoo kale waxaynu aragnaa doodaha inta badan ay iskaga hor yimaadaan dadka xukuumadda u shaqeeya ama taageera iyo kuwa shacabka u danaynaya amaba iyagu wax diidan ee isleh tolow sidee baa loo sixi karayaa waxaas ayaamihii ugu dambeysay mas-uuliyiinta dowladdu baaqshacab waxay ku sheegayeen inay tahay fikrad ay dad gaarihi soomaaliya ka soo qaadeen ka soo xawileen dabadeetana la leeyahay waa fikrad soomaaliya ka timi fikraddan ma aha fikrad shacabka somalilan ay qabaan taas oo la doonayo in dadka shacabka ah lagaga jeediyo danta iyagu ay u arkaan
sida ay dalkooda iyo dadkoodaba ku horumarin karayaan waaya sidaynu ognahay mas-uuliyiinta arrintaa ka hadlay waxaa ka mid ah master xinif oo dhalinyarada la xisaabtamay oo ku sheegay dhalinyarada in iyaga iimaankii ka weynaaday balse somalilan aanay 30 sannadood waxba ka xumaanin waxay noqotay mid aan fariir iyo yaab leh waxa dhalinyarada iimaankii ka weyneeyey ee uu mas-uulku sheegay sidoo kale mas-uuliyiin badan oo agaasimayaal guud oo kale iyo wasiirraba ay ka mid yihiin waxay daadafeeyeen oo ku eedeeyeen in fikraddan ay wadato dowladda Soomaaliya oo had iyo jeer Somaliland ay ka dhaxayaan xurguf siyaasadeed iyo muran dhanka dowladaha markasta oo Somaliland shacbigeedu ay wax tawdaan ciidda xukuumadda markaa haysa waxay ku difaacdaa in arrintani ay tahay arrin laga keenay Soomaaliya si shacbigu ay uga istaagaan oo yiraahdaan anagu fikir Soomaaliya wadato ma taageerin sidaas la mid ah waxa la adeegsaday durba oo baraha bulshada iyo meelo badan oo kaleba ka qaylinaya dad ku hadlaya afka Soomaaliya oo leh baaqshacab aanu soo dhaweynayna arrintaa aad u faham dhalinyaradii baraha bulshada u soo geli jirtay iyo odayaashii reer Soomaaliya oo dhammaantood soo xidhay shaarka baaqshacab iyadoo anigu aan uga shakisanahay iyo dad badan oo Somaliland dariba inay dowladdeenu si ay dadka u tustay indhahooda wax ay ku tiri iyagana soo hadla ma maqli jirteen markii ololaha lagu jiray niman oran jiray waxaanu taageernaa xisbiga wadani waxaanu ka joognaa Muqdisho cismaan ciro iyo cali ciro oo aan magaca gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ciro ba aqoonin balse la sheegay in dhalinyarada la abaabulay oo dhaqaale lagu bixiyay saxaafadda Somaliland gudaheeda ka shaqeysana qaar ka mid ay fulisay in barnaamijka noocaas ah dad yar oo kooban oo la soo xulay laga soo qabto si loogu eedeeyo in xisbigan wadani uu yahay xisbi Soomaali weyna oo Soomaaliya wadato oo iyadu ay doonayso inay shacbiga Somaliland mar kale ku hantido taatu lamida waxaan arkay rag fara badan oo reer Soomaaliya oo dadkii baraha bulshada ka hadli jiray oo Somaliland shacbigeeda u sheegay oo ku leh baaqshacab taageera waa baaqshacab ka yaaca waxa la xiriirayna mas'uuliyiinteena dawladda ama ha noqoto kuwa wasaaradda warfaafinta ama ha noqoto kuwa madaxtooyada ama ha noqoto ololihii xisbiga kulmiye kuwii hormuudka u ahaa markii horeba ku eedeeyay xisbiyada la tartamayay inay Soomaaliya wadato oo Soomaaliya fangareynayso haddaba shacbiga reer Somaliland maxaa u dana waa su'aal ay tahay inaynu ka jawaabno aan isweydiin 30 sannadood kadib oo dowladda Somaliland wali ay ku sugan tahay xaalad cakiran oo dadkeedii ay halkii ay 19 qaxootinimada joogeen aynaan oran karin graf qurux badan baa ka kacay waayo hargeysa wali waxay ku nooshahay wadooyinkii bariga wali waxa la cabaabiyay bariga ma jiro ijiin cusub oo biyooda u soo kordhay ama riig cusub ma jirto qalab cusub oo wadooyin oo soo kordhay mana jiro wax soo saar iyo khayraad cusub oo hargeysa ku soo kordhay sidoo kale magaalooyinka kale ee dalka dhammaantoodba Burco Boorame Ceerigaabo Laascaanood midibata kale way ka sii hooseysaa oo graafkoodu waa wax lagu qiimeyn karo halkii ugu hooseysay ee nolosha bini'aadamka sidaas la mid ah saami qaybsigii Somaliland baa hawada ka baxay beelihii waxay noqdeen beelo maanta lagu yiri dimuqraadiyad baa la qaatay maadaama dimuqraadiyad la qaatayna wax axad qarameed la yiraahdo iyo wax dad la yiraahdo wax loo qaybinayo midna ma jirto dimuqraadiyadu waxay sheegaysaa in 10 nin oo isku reeri oo ilmaadeeri ay agaasimayaal noqon karaan 10 nin oo waxa weeye ilmaadeeri ay noqon karaan wasiiro madaxweynaha iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo taliska ciidamadu ay ilmaadeer noqon karaan taasina waa nidaamka dimuqraadiyadda mid kamid ah oo Somaliland dimuqraadiyad bay gaadhay haddaba su'aashu waxay tahay cadaaladda dalka iyo garsoorka qofka ugu sareeya miyaa la doortaa oo dimuqraadiyad iyo cod shacab ayuu meesha ku joogaa misa waa qof select ah oo la soo xulay oo dadka laga soo dhex saaray haddaba la eeg ma elective misa waa select dadku waa inay fahmaan wax badan sidoo kale talisyada ciidanka ma waxa lagu keenaa khibrad iyo akaademiyad ay ka soo baxaan oo ka qalin jabiyaan misa waxa lagu keenaa waxa weeye qof la soo doorto madaxweynuhu qofka uu la jeclaado isagu uu dikreeto ku magacaabo su'aalahaas oo dhani waa su'aalaha aynu doonayno bal inaynu dimuqraadiyadda waafajino arrimahan dhex yaala
haddii cod shacab iyo dimuqraadiyad wax lagu doorto ma madaxweynaha waxaan ahayn iyo golayaasha guud ee baarlamanka deegaanka ma waxaan ahayn baynu kusoo dooranay oo aynu maanta ku faanayna waa su-aal ay tahay iyaduna inaynu aad uga fikirno aynu isweydiino dhinac walba oo aynu u eegno arrimahaas shacbigu halkii ay doonayeen waxaad moodaa weli garaafkeedii inaan lagu dhoweyn laakiin siyaasiyiintu ay isleeyihiin malaha idinku halkii aad doonayseen limitkii aad doonayseen waa taagan tihiin maanta waayo siyaasi kastaaba waxa uu ku leeyahay waddamada carabta waddamada yurub amaba australia iyo america qasriyo isagu ugu talagalay inuu ku raaxaysto marka uu xilkan ka tago amaba carruurtiisa iyo reerkiisu ay faa'iido iyo hanti iyagu ay leeyihiin ay u noqdaan wasiir kasta oo somaliland maanta jooga waa nin waxa weeyaan qasriyada qayb ka ah waa nin dalka waxa weeye isagu qaybta uu ku leeyahay gashaday waxa weeyaan waddamo kale hadday imaaraadka noqoto haddii ay faransiiska noqoto hadday ingiriiska noqoto oo wasiirka maaliyaddeena sacad cali shire aqalka iminka uu ka dhistay indhahaagu ay yaabayaan haddaba la adeeg halka hooyada ku nool tukaraq ama belidhiig ama odweyne ama salaxley ama beligubadle ama lowyacdo aanay haysanin m c h ay caafimaadkeeda waxa weeye kula dadaasho amaba xanaano carruurta iyo dhallaanka lagu waxa weeye xanaaneeyo oo caafimaadkooda lagu ilaaliyo waa su-aalo ay tahay inaynu isweydiino siyaasiga shacbiga madaxa kaga taagan ee ku leh soomaaliya idinsoo dirtay haddii shacbigu ay hadlaan haddii shacbigu ay erey yidhaahdaan soomaaliya ku eedaynaya isaguna qasriyada ka dhistay haddiiba soomaaliya ay noqotay wax laysku quuqiyo isaguna ma yahay wax laysku quuqiyo haddaynu madaxweyneheenna maanta ku eedayno inuu 40 balood hargeysa ku yeeshay carruurtiisii wada tijaar ka dhigay reerkiisii xilalkii ugu qaybiyey sidii hanti awowgood uga dhintay haddaba leega somaliland kala diray soo maaha waxaynu isku quuqin karno oo shacbiga somaliland odhan karno shacbiyow madaxweynaha ma waxaynu u doorannay inuu cid gaara iyo naftiisa u faa'iideeyo mise waxaynu u doorannay shacbiga min gobol ilaa iyo gobol kala jooga daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo siyaasadooda in uu god waxweeye adag iyo mid jilicsan iyo god wanaagsanba u galo oo waxweeye dantooda uu dib jiro waa su-aal ay tahay shacbigu inay isweydiiyaan waxaan aad ula yaabaa fikradaha madhalayska ah ee dadka lagala hor yimaado marka la waayo wax kale oo cilmiyeysan taasoo la odhanayo waxaasi waa wax soomaaliya waxaasi soomaaliya noo keentay waxaasi soomaaliya ay ka yimaadeen haddana mashaariicda somaliland 80% soomaaliya ay soo saxeexdo weliba madaxweyneheennu uu qandaraasyada gobolada hadday noqoto 7 milyan ee la siinayay berbere maraykanka ayaa ugu dhawaaqay gobol kasta oo xeeb leh oo weliba dekedaha marsooyinka waaweyn ee dhulka soomaalida ku yaala leh lacag lagu horumariyo xeebaha waxay kala ahaayeen kismaayo boosaaso muqdisho iyo berbere madaxweyneheennu muu odhanin berberi waa somaliland ee ha laga reebo balse qandaraaskaasi waxa uu soo gaadhay magaalada berbere waxaana lagu horumariyey deegaanada gobolka saaxil iyo gaar ahaan magaalada berbere xilligaa lama odhanaynin dowladeennu waxaan soomaaliya keentay ee naga duwan haddaba laada fahmi laakiin aniga iyo adiga masaakiinta yaryar ee hadalkooda lagu ciilayo amaba laga codka dheer yahay hadday maalin hadlaan oo nafta ciilkeeda ay mar waxa weeyaan qayliyaan oo dulmiga ka qayliyaan waxaa markiiba laga hor keenaa waa arrin soomaaliya wadato waa dad reer soomaaliya ah dhalinyaraa lacag la soo siiyey iyo waxyaabo lamid a waxaan ka shakisanahay siyaasiyiinta somaliland inay lacag soo qaateen oo qadiyadii reer somaliland ay lacag ku bedesheen waa anigu taan ka shakisanahay waxaa shalay ka hadlayay guddoomiye faysal cali waraabe waxaanu sheegay oo shacbiga reer somaliland waxa weeyaan uu isagu waxa weeye ku sheegay in ay yihiin dad qaldan oo ku qaldan aragtida odhanaysa waxa weeyaan puntland raaca waa qaarkood haddaba leeg halkan waxba nooguma haysaan cunahaad nagu haysataan naga raaca xaggiinaa raaca arrintaa 2 habeen ka hor ayaa waxaa aniga telefoon igula hadlay mid ka mid a dadka siyaasadda puntland u dhuun daloola oo weliba
beesha madaxweynaha ee dani waxa weeye ka mid ah hadalkaasna uu ii sheegayna wuxuu ahaa in somalilan gudaheeda lagu maqan yahay oo iyada gudaheeda ay ka iman doonaan dad soo eryada dadka reer waxa weeye sool ee cadhaysan ee ka cadhaysan somalilan xaqii ay ku lahaayeen oo ay waayeen iyo kii puntland ay ku lahaayeen oo iyadana ay waayeen si ayna u raacin dhinaca somalilan maanta oo ay dhinaca puntland muran siyaasadeed uu ka dhexeeyo oo aad u adag waxyaabo badan markaynu qiimeyno waxaad is odhanaysaa cidda lagu shubtaa waa siyaasiyiinta oo ugu horeeya madaxweynaha guddoomiyeyaasha xisbiyada wasiirada aynu arkayno iyo mid kasta oo hay-ad dowladeed jooga waxyaabaha shacbiga lagu eedeeyo madaxda ma qabato oo laguma eedeeyo maalintii ay puntland waxa weeye dowladda samaysatay siyaasiyiin badan oo dowladda muuse bixi xilka hayaba hambaliyeynayay oo twitteradooda iyo barahooda bulshada ku hambaliyeynayay maalinta la aasaasay puntland haddabalaad u eeg haddana shacbiga somalilan qof ka mid ihi haddii uu hambaliyeeyo wax soomaaliya ka socda waxaa la yidhaahdaa waa tuug lacag buu ka soo qaatay soomaaliya haddaba su-aashaad isweydiinaysaa qalbigaagu maxay tahay mubaarak taani oo xoghayaha gaarka ah ee madaxweyne muuse biixiye miyaanu hambaliyeynaynin maalintii puntland la aasaasay markii la xusayay isagu yuu lacagta ka soo qaatay bal su-aasha qofka ka jawaabaya iyo cidda ka jawaabaysa ha baraxato waddada ay doonayso inay ku jawaabto adigoo shiciba oo miskiina haddii aad wax soomaaliya ama soomaalida dhulkeeda waxa weeyaan ka jira aad ka hadasho waxaad tahay qof tuuga waxaad tahay qof dulmidoona waxaad tahay qof shaqo tegey waxaad tahay qof waxa weeye dadka somalilan aan u qalmin fikradoodana aan waxweeye ku hadli karin haddabalaad eeg laakiin mas-uulkaaga soomaaliya u shaqaynaya ee arrimaha soomaaliya isagu ka shaqaynaya waa mas-uul saxan oo maalinta isagu la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan maalinta isagu uu doonayo soomaaliya wuu hambalyeyn karaa maalinta uu doonayo aduu kugu eedayn karaa oo ku odhan karaa soomaaliya ku soo dirtay isaga eedaasi ma qabato haddabalaad eeg shacbigeenna qaar badan oo ka midii waxay aaminsan yihiin in beelaha reer somalilan qaarkood ay yihiin dad soomaaliya ah oo aan somalilan lagu aamini karin sidii doodeennii xalayto ka muuqatay ee aynu shacbigeenna ama hadalkii faysal garawshiyaha looga bixiyey haddabalaad u fahma wax badan barnaamijka wada sheergareeya meel kasta oo aad iga daawanaysaan intiina ku jirtay iswada gaadhsiiya barnaamijka okay intaasi marka ay dhacdo beelaha somalilan beel aan maanta muqdisho dadka joogin oo aan siyaasiyiinteedii muqdisho joogin haddii aynu soo tira koobno ma jirto ilaa ta ugu yar ilaa ta ugu weyn beesha madaxweynaha soomaaliya waxay ka haysaa xilka ugu sarreeya ee dadka reer somalilan lagu sheegaa ay waxa weeyaan hayaan haddabalaad u fahma waa guddoomiyaha aqalka sare beelaha kale ee isaaq mid waliba xubin muhiima bay ka haysaa soomaaliya haddana weli ma aragno iyada oo beesha madaxweynaha lagu eedaynayo inay dalka soomaaliya u wado oo aanay daacad ahayn oo ay kala qaybsan tahay lamana yidhaahdo xujada ah dhinac isu raaca xujada ah dhinac qura isu raaca iyaga ma xidho sidoo kale aniga beeshayda ma xidho oo beeshayda siyaasiyiinta ugu waaweyn baa ka jooga soomaaliya kuwa ugu waaweynina waxay joogaan hargeysa labada dhinac bay isu eg lama odhanin war maareeyo raaca oo somalilan iskaga taga ama somalilan soo raaca oo maareeyo soo gaxeeya iyo siyaasiyiinta xagga idinka jooga beesha garxajis ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo siyaasiyiinta kale ee miisaanka badan leh ee iyaguna ku jira dowladda soomaaliya laguma eedeeyo oo lama yidhaahdo war maxaad soomaaliya u raaci weydeen ama somalilan bal dhinac isugu lugaduda laakiin gobollada darafyada somalilan ku nool inta dhuun la fugashay ku noqotay ee maalin walba cayda iyo aflagaadada iyo waxa weeyaan dalka oo laga xigo lagaga hororsanaya waxa weeye siyaasigaagii wuxuu joogaa puntland siyaasigaagii wuxuu joogaa muqdisho siyaasigaagii wuxuu joogaa meel kale adigu somalilander saxa ma tihid su-aasha aynu markaa isweydiinaynaa waxa weeye somalilandernimadu ma qabiil loo dhasho oo aan camalkaaga ahaynba haddaba leeg ma diin dadku ay aaminaan oo la yidhaahdo qofkani wuu tukaday
قف كان لا إله إلا الله أبو قري كان الدين كلو هيستا ما صدا صو كلابا هذا بالسويدية دين اليهود والله نشاء لكن لما نقضه لغما بيري كرو ما أركيسيد قف كله وحن نقضه تويش ما أركيسيد قف إسرائيل بان نقضه كله ما أركيسيد قف كله عدا سانجلا لكن وعد أركيسا قار بدن أو كامبين كسوق عطينا الضدك كل هذان كريستان كراعة تنكلا راعة waxyaabaha la yaab kale inaga teeni hadaba ay maanta ku fool xumaatay ayaa waxa kamida inanka reer awdal hadii la doodayo waxa lagu la doodaa adigu ma Soomaaliya dadta tahay mise Somaliland cabsi baad u joogtaa meel aad raacdo ayaad weeyday laakiin hadii aad helayso waxaad googoyn lahayd calanka Somaliland iyo ciida Somaliland iyo dadka reer Somaliland waa dooda ay dadkeenu had iyo jeer ku difaacaan Somaliland aynu doonayna inaynu raadino hadaba la eeg ninka dhul baantay ama warsangeli isagana sidaas la mid ah waxa lagu difaacayo lagu eriyadaa Somaliland aad waxa weeyaan wax u taraysaa waati cashuurtayadu baad qaadataa lacagtayadu baad cuntaa waxa yagii baad nagu haysataa bal waxan yaa ina siiyay inaga gaar inooga dhigay inagu miyeenaan kala qaybsanayn oo adeeradeen ayna Muqdisho wada joogin oo adeeradeen ayna Soomaaliya hor ordaynin oo maalin walba aanay saxaafada soo fadhiyin oo Somaliland dacaadeynaynin oo aanay cadow ku ahayn misa dadka kale iyagu reer ahaan bay cadow u yihiin bal su'aasha isweydiiyay qof kasta oo aqli leh waa inuu ka fekero waxa maanta taagan inaynaan ku gaaraynin waxaynu doonayno qalbigeena iyo afkeenuna inaanay isku mid ahayn hadaba la eeg qof waliba wuxuu ku leeyahay markuu afka ka hadlayo waxaan doonayaa Somaliland inay horu marto inay dal gaar ah noqoto in dalkii Somaliland la isku wada oran jiray la hagaajiyo inaynu ictiraaf helno oo adduunyadu ina aqoonsato haddana mid waliba wuxuu ku leeyahay kii wax la noqon lahaa ee wax la dhisi lahaa ee wanaagiisu uu ku xidhnaa adigu reer hebel baa tahay oo farmaajo ilmaadeertiin wallahi ma farmaajaan ilmaadeernay oo adigana ay ilmaadeertiin anigu ninka gobonimo doonka ee dalka daacada u abaanay haye oo mahdi guuleediye ilmaadeeriin meena Muuse bixil ilmaadeerahayn ma Muuse diray oo Cabdi Xaashiye ilmaadeeriin meena Muuse bixil ilmaadeerahayn yaa diray oo ninka la yiraahdo waxa weey maareeye yaa diray xagga geeyay inaga yaayna kala qaybiyay horta su'aashayna wayna marka hore isu jawaabno ninkeena tagay Soomaaliya waxaynu nidaahnaa waa qof naga xumaaday wuu shaqo tagay iyaga kooda Soomaaliya tagayna shacbigoodeenu ku shaambadaynaa oo waxaynu nidaahnaa wakaa siyaasigiin wakaa halka ordaya hadaba leer inagana siyaasigeena xun uma fiirsan bal dhinaca kale u rog oo ay fafaalaha iyadana xagga kale ka faaleen waxaynu arkaynaa haddii Soomaaliya dawlad hawiye wado ay ka dhalato shacabkaynu garaacnaa waxaynu walaalaynu nahay aynu wada hadalno aynu heshiino aynu wuxuun isku afgarano haddii dawladda daarood wata ka timaadana waxaynu waa cadowgeeni weligeen la hadli mayna inaan ka yareysiyad bareedeerkiya inta uu meesha fadhiyo ee isagu u joogo laakiin dadkii dhulka lahaa hadaba hadalka u fiirsada dadkii dhulka lahaa ayaanu sugaynaa inta is xoreynayaan ee ay wax noqonayaan hadaba Somaliland noocaasa ee hawiye la walaalka ma dhulbahantaha ma warsangeliga ma isaaqa ma ciisaha sawa sawarota bal aad isu weydiiye Somaliland taas waati okay ma reer cusub baynu samaysanay dhamaanteenba oo reerkaasi wuxuu walaalo noqday hawiye oo kaliya daaroodka وسؤالها أي تاي إنه يسويدين إلا أنت إنه حقيقة قرينا لقما يابا إنه قررنا ماشى إنه كحنا هاي يوحى ينجا قلدان مننا وارميلا صعطان برنامج كوضا الشهر قرأي شعبي الصومالي لأن ما هاي قبيل وحكو رادية وكو شيء قبيل كلي هذا إنه وحكو رادية إنه اسكتلي إنها ضلنا إنه الصومالي لان دون إنه maaha waxaan qabaa aqoonsiga Somaliland waxa hortaagani waa dulmiga aynu dadkeena ku haynay inagu isku hayno dulmigeena iyo shaarka aynu markii hore xidhnaa wuxuu ahaa shaar SLM wuxuu ahaa shaar Isaaqi Same wuxuu ahaa shaar ninka